فبشري وبالآذو بركة يسويان وبالقبوليات بأول سعة أمة النبي محمد هبين قصوا بشهر رمضان كمذا وحو النبي قلنا شيء إن إلهي أوليه الضماء النار تكحريه إن لله عتقاء من النار في كل ليلة وذلك في كل ليلة أبو النبي يقول هبين كستي وحا إلهي وهات الضماء النار تكحرينا وبشي نحريستا ضد بعض الكيساب كوبي وتوان كابلو المساجد أنا سوقلين وبشا إلهي مسكيك سوقلين ما دعضو ما دعضو ضد بعض بشهر رمضان بي كلا وريق يعني كلا وريق نولو شي سودا ما إلهي كلا وريجين وعلى قيابة أول إنه معاصية غفلت كجري لكن بشهر رمضان قابل كي سوقا بشيء يسقون أو سوقا بلي أيا إلهي تبارك وتعالى وصوم وقضي أدون كيسي مرقادا إلهي وفريا الباب دي الرحمة دا إلهي وفريا الباب دي أعماش الله فريا صلاة دي بو حافظيا صوم كي بو حافظيا قرآن كي بو حافظيا أخلاق دي سودا ما إلهي بشهر رمضان كو بدليا وبالآدو بركة إسان بركة دي دا وحاكو فيلان شرف وابش القرآن الكريم كإلهي سود جيه وياه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين هبين كم ذا بشهر رمضان أيا إلهي القرآن الكريم لقصوا النقليين من لوح المحفوظ بكسوق هذا الملائكة إلى بيت العز والسماء الدنيا كويا لا من بيت العز القرآن وكسوا دقي إلى سماء الدنيا صدح الله بعد سنة القرآن كسوا دقي سورة دي وجوه الرئيسنا وحيه اقرأ آية دوجود ما سنة علماء وحي كشجان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون آية دوجوه الرئيسنا وحلقة بالأبي وللتعريف إلهي من النبي جيس يسكب براي أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق آية دوجود ما سنة وحي نقطي واتقوا يوما فيه ترجعون إلى الله كبغ بالليه مالين إلهي كسعب صدا ومعاصيه منكر كي حمانته كم جوك صدا مالين بايمن دونت إلهي الحقي سؤون نقني دونتان أو نف والبا وحي أدوية كسوق قبته إلهي ورتيس لقى أبا المرين دونه يدو أنا اللي ضمن الله واحد قدبي بشر رمضان وحال دونه يدتك مسلمين تو إني كبرتان إيمانية تقوى تربية عافماتك كو زيادة إيمانك كو زيادة عبادتها كو زيادة قرآنك آخرس كيسا كو زيادة وعذرك يسابق شهر رمضان سيدا قرآنك الله أخرنه بلاها كلا الله ما أخرين كرام وابشي قرآنك سيدا درادد ورولا المسلمو مالين تيدنا هردها كو قابسن هابين كيغانا سوجيدين وكو دافن dad badan baad arkaysaa muslimiina maalinkana way hurdayaan habeenkeegana way soo jeedayaan waa fursad ilaahayna siiyay xataa waxa ku taala kutubul taariikh culamadii hore islaamku bisha Ramadaan qaarkood cilmiga ummadda ay barayaan intay yar joojiyaan bay oran jireen bishan waa bisha quraankan akhrinayay bacda Ramadaan hayno haato ragi koob iyo tobanka bilood ummadda cilmiga barayay ee quraanka tafsiirkiisa barayay ee xadiidka nabiga tafsiirkiisa sharxiisa barayay ee fiqiga ummadda barayay ayaa oran jiray bishan waa bishii cibaadada weeyaan waa bishii ilaahay loo dhawaanayay waa bishii quraanka la akhrisanayay nin sheekho maalin halka ka hadlay wuxuu yiri imaam Shaafici rahimahullah waxa laga sheegay buu yiri inuu saddex iyo lixdan jeer ayuu quraanka bisha Ramadaan khatimi jiray baa leeyahay labi iyo lixdan jeer habeenkeena marbu khatimayay maalinkeena marbu quraanka khatimayay hadu maxaan akhriyaa hadu maxaan akhridaa waqtigeena halku ku baxay maanta waa fursad kal dambe inaad heli doonto lama garan karo way ku soo martay laakiin hurdada inay kugu dhaafin maalinteedu habeenkeeguna soo jeedin kugu dhaafin iyo sheekay ma la yaani maalinkana masaajida amr oo quraanka akhri oo dhikriga badi oo cilmiga culimada ka baro oo xalaqaadka fadhiiso oo ummadda baraarujiyo ziyaaro dadka xaq ilaahay ugu yeer habeenkeegana qiyaamkeega iyo taraawiixdeedii iyo quraankeega u kac والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا با إلهي وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا كو حقيقة وصول دادالة با إلهي إليهي طريقيدي لنو سو مريبان أفرنا با إلهي
islaamnimada ilaahay baa kugu deeqay adiga laakiin muslim quman inaad noqoto adiga dadaalkaaga ku xidhan tahay islaamnimadu waa hadiyad ilaahay ku siiyey ilaahay baa diinta islaamka kaa dhaliyey laba waalid oo muslimiina dhexdoodana kaa soo saaray laakiin muslim quman oo toosan inaad noqotaa dadaalkaaga ku xidhan tahay lidaalika mujaahada ilaahay naga dalbay mujaahado jaahaduu fiina kuwa xaggayga u soo jihaada baa ilaahay kitaabu lfawaa'id ibn qayim raximahullah wuxuu ku sheegay ninba ninka uu ka jihaad badan yahay ayuu ka hidaaye badan yahay fardu caynna waxaa jihaadka ugu fardu caynsan waxa weeyaan waa naftoo lala jihaado shaydaankoo lala jihaado adduunyadoo lala jihaado hawada naftaadoo lala jihaado afartaasi in lala jihaada waa fardu cayn calaa kulli muslim afartaa jihaad ninka soo dhaafay ayaa ilaahay macrifadiisa dhadhaminaya ayaa cibaadadu u dhadhamaysaa ayuu qur-aanku u dhadhamaya ayaa masaajida fadhigoogana u fududaan doontaa ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid a alhaadi hidaayadda ilaahay baa haya laakiin asbaabu lhidaaya waa maxay masaajida camir inamaa yacmuru masaajid allah man aamana billah واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أسباب الهداية وحاكمدا إن المساجد عمرتا وصلاة أوكتا والزكاة بحسا ودلاهي ما ينعدك الآن تكبغن صفاتك قفك اللقاه لبا إلهي فعسى أن يكونوا من المهتدين وحو مضيح قفك إنه كم من غضب إلهي ركوها هنوصنا الهنولية أسباب الهداية ومساجد كعمر حقاد البح تعليق نوحوها قبل الخطبة لكن علماء أنا قالوا رواج جمعة والرمضان حقين لتقي وحي خير إلهي نسود أحمر ينا ومدها الله شيقو ومدنا دقيقة هو فرطو إلهي قول كيسا هم مغش من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه أدونك كلجي حصوص با إلهي يري أنا أقول كلجي بان حصوصنا يا أدونك جمع يقول ده حصوصي يقول ده وينينا جمع ويقول ده حصوصي جمع كخير بدل ما يقول ده حصوصا با إلهي يري الآن هد إلهي بين هذا الحياة إنك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بإلهي حصوصتا أنا وأنا حصوصنا يا إنسان ضعيفة أو مسكين أو فقيرة مركو إلهي حصوصته إلهي جل وعلا حصوصنا يا مع صفاته جل وعلا كما يليق بجلاله بكو حصوصنا يا إلهي هن أمنا إلهي هن حصوصنا هكو شكرنا هسكو برارجنا هم برينا باهدين إسقى هنو شجنا إسقى إن نقول ما ركتاني وتوبوا إلى الله جميعا لما أنت نسوى النقض بإلهي لي من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه أدعته أنت إن كسر النقض قلبين كيسو النقض بإلهي لي إسقى نوانو نقض يا بإلهي ونسو نقض يا تدري بري ما وقت عيني عياد حاجة صبح ياك لا نتوب إلى الله عز وجل بشي بركة سنيد ما كجرنا وبشي توبدا وبشي النار كحرينتا وبشي دم دافكا وبشي الرزق مؤمنك للزيادين وبشي عفسك دتك مسلمين توحال قرب بشا إن يكون يحدودو إسعافيان إلى هنا عفس أي ويديستان إلى هنا أي النقدان إلى هنا أي حريص كالضلبان هذا ولالك عاد عفدو أذكر إلهي باكو عفين الرب بن إسرائيل وإلهي ودقال السياجري وغنيها لكن وحوها مصرف وإسراف النكاس نفتيسا وما في عيني ومعاصبنا والله نعميي أولاد با إلهي سيي أرزاقات با إلهي سيي عافمات با إلهي سيي مع ذلك هدنا وحوها من عاصي أبوها لكن صفة عجيبوا لها صفة دي سمعي دادك أيو لعكت أما هجري marka kii soo celiye xilliga lagu ballamay uu ka qaadanayay ka ballanta ii biri yiraadina ballantu u kordhinayay ka keeni kari waayeen oo iska cafinayay maalintuu dhimanayay buu nimadiisa u yeedhuu yiri aniga ilaahay aabba waa ii nicmeeyay laakiin nicmadii ilaahay waan ku kufriyay
waxaan ilaahay la hortegayo iga horeeyo khayr aan uma garanayo ya ma garanayo wax khayr oo iga horeeye aaba dadka sidaan ula tacaamula buu yidhi daymiya ka daynka soo celiya xilliga lagu ballamana ka qaata ka daynka soo celin kari waayana ka cafiya ka ballanta noo biiri yidhaahdana mawcidka u biiriya maalinkuu dhintay ayaa ninkii ilaahay la hor joojiyey ilaahay baa yidhi soo saara ii keena addoonkaas markaasaa ilaahay yidhi addoonkaan u nicmeeye ma tihi haa waan ahay addoonkii baan ahay maxaad la timid maanto agtayda aad soo dhigatay waxba mujrim baan ahay daalim baan ahay faasiq baan ahay musrif baan ahay mutrif baan ahay waan israaf markaasaa ilaahay jalla wacalaa ku yidhi miyaanad ahayn addoonkaygii addoommahayga dayminayey ee sidaa ula tacaamulayay maad ahayn waan ahaa addoonkaygii miyaanad ahayn maalintuu soo dhimanayay wiilashiisa kala dardaarmee yidhi ka daynka soo celiyana ka qaata ka mawcidka noo biiri yidhahdena mawcidka u biiriya ka soo celin kari waayena iska cafiya addoonkii innimadiisa sidaa kula soo dardaarmay in addoommahayga ula tacaamulaan adigu ma tihid haa waanahay anna waan ku cafiya jannada gal baa ilaahay yidhi walcaafiina can innaas wallahu yuxibu lmuxsiniin maalin kastoo isniina buu nebigu yidhi maalin kastoo khamiisa ayaa acmaasha addoommadu ay sameeyeen ee wanaagsan ilaahay la horgeeyaa addoon kasti oo ilaahay cibaadadiisa aan cid kale la wadaajin dembiga ka dhaca ilaahay waa u soo dhaafaa ilaa laba addoon buu rasuulku yidhi laba addoon dembigooga lama dhaafo camalkoogana ilaahay hortiisa laguma furo ilaahay wuxuu idhahdaa labadaa camalkooga u celiya dembigoogana ma dhaafayno ilaa ay dhexdooda ka heshiinayaan ay dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane kaanat baynahuma shaxnaa buu nebigu yidhi laba addoonoo dhexdooda cadaawtinimo iyo buqdi iyo isnacayb dhexdooda uu ka jiray camalkooga ilaahay jalla wacalaa loo geyn maayo dembigoogana dhaafi maayo celiya buu ilaahay dhaha kuwa camalkooga ha ii keenine ilaa ay isa saamaxayaan iyaka dhexdooda walaalayaal bishan waa bishii cafiska waa inaan inagu iscafinaa waa inaan isku naxariisannaa waa inaan noqonnaa sida ilaahay sidii nebigeennu yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda mu'minku mu'minka kale wuxuu ku yahay dhis mu'miniintu sida dhagaxda dhisku ay dhagaxba dhagax u haysto ayay muslimiintu isku haystaan way isxoojinayaan way isku kaalmaynayaan way isku naxariisanayaan way isku damqanayaan way is asturayaan addoon walaalkii adduunka dusheeda ceebuu ku arkay uma qariyo ilaa hadduu asturo buu nebigu yidhi isagana maalinka qiyaamaha ceebigiisa ilaahay asturaya walaalkaa ceebtiisaaad maanta qarisay maalinka qiyaamahee banka qiyaamaha khalqiga lagu fadeexadayn doono ayaa ilaahay ceebtaada ku asturi doonaa addoon mu'mina ayaa ilaahay u yeedhi doonaa uu soo dhowayn doonaa ilaahay raxmaddiisa iyo sadrigiisa ilaahay huwin doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkii hebel hebel ahaaye dembiga badnaa ma tihid markaasuu leeyahay haa ma garan dembigii maalintii halka aad ku samaysay ma garan markaasuu leeyahay haa markaasuu rabbulciza odhanayaa adduunka dusheediina waan ku asturo cidna kuumaa sheegin maantana dembigaaga waan dhaafee kitaabkaaga gacanta midig ka qaado sucaal odhan doonaa has xidhiidhinno waa bishii dadka muslimiinta la doonayay inay sidii hore si ka duwan ay iskaga warhayaan isku damqadaan is-afursiiyaan afurka iskugu yeedhaan ninka walaalkii timir ku afursiiya buu nebigu yidhi ajarkii siyaamkuu qaadanaya haddaad timir haynin ka basho biyaa waad heli kartaa biyo ku afursiya walaalka kalimatu tayibatu sadaqa kelmadda wanaagsan waa sadaqad salaanta faafi afshu salaam wa atcimu طacaam wasilu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam waxau nebigu yidhi war salaanta dhexdiinna faafiya dadkana cuntaysiiya riximkana xidhiidhiya habeenkii dadku markay hurdaanna kaca oo tukada jannada rabbigiin buu nebigu yidhi nabadgelyaad ku galaysaan yaa bishaa walaal kulligan inaan iscafino soo diyaar uma nihin insha allah يا ما يسعفني يا ما يسعفني ما يسامحنا dadka walaalaheen haddaad walaalkaaga muslimka waxtar u yeelanay sharkaaga ummadda ka hayso takufu sharraka can innaasi sadaqatun minka buu nebigu yidhi sharka ilaahay kugu abuuray oo ummadda aad meel kala fadhiisataa sadaqad bay kuu tahay buu rasuulku yidhi haddaad waxtar haddaad ummadda u yeelan weydo waa inaad sharkaaga ummadda ka haysataa
bishaas waa bishii ducada la aqbalayay han isku ducayno ummadda hanu ducayno muslimiinta caalamka islaamiga khaasatan hanu ducayno gaaladana ilaahay intii hidaayada ugu talagalay ilaahay inuu albaabada hidaayada u furo hanu ku ducayno wixii shar wadana sharkooga ilaahay gudahooga inuu ku celiyo ha ku habarnaya kana ilaahay wixii khayr wadana baan leenahay khayrkiisaas uu kaalmee wixii shar nagula soo maqanna ee muslimiinta dhexdooda dhib iyo xumaan dhexdooda ka wadana ilaahay sharka uu nagula soo maqan yahay gudihiisa ku celiyo insha Allah soo ku ducayn mayna sidaas dadaalka diinta zamankan waa zaman waxaan ku jirnaa adag baan ku jirnaa adag khayr ka badan mise shar ka badan baligi jawaaba magaaladiina dadka khayrka badan la inay keenay badan Allah inii ziyadiyo runtii jamaacadadu markay magaaladeena booraba soo maraan inuu yimaadaan waxaan ka warramaa magaaladii waxay dhaadaan magaalada sida quraanka loogu dhiganayay masaajidana loo camiraayo meel lamida ma loo arag bay dhaadaan khayrkaas la inagu sheegaye Allah inii ziyadiyo aamin dhahada laakiin khayrka ma la fadhiisanaa mise ummadan gaarsiinaa ya tuulooyin waxa jira markay jamaacadadu ay mareen imaamka kaliya salaada subax uu ka tukado imaamka kaliya bas dadkii waa wada muslimiin ma soo kacaya salaada subax khayrkaas aan haysanno waa inaan ummadda kalena aan ku deeqnaa waa inaan ummadda u gudbinaa waa inaan ummadda u naxariisanaa soo diyaar ma nihin sidaas Allah inagu anfaco dambigeena Allah ha dhaafo dad walaalaheena oo muslimiina oo dhalinyar iyo odayaal intaba leh ayaa nool iyo la maaragtay majmaca loo nooga duceeyo waa maalin jumcuhuna waa saacada ijaaba ku jirta waa maalin jumco oo bir rabadaane dhammaantood insha Allah taala ilaahay muraadkooga macsiyo lahayn gacanta midinu ka siiyo maxaa tiraadeen Allah siiyo dhaxda wixii naga bukan Allah shaafiyo wixii buka Allah shaafiyo qof kasto muslimo kurbeysana kurbada halka uu ka kurbeysan yahay Allah ka qaado mid kastana muraadkiisu macsiyo lahayn gacanta midig Allah ka siiyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba Allah inoo hadeeyo inagana dambigeena Allah inoo dhaafo diintana Allah inoo macaaneeyo salaada Allah inoo macaaneeyo quraanka Allah inoo macaaneeyo diinta barashadeedana Allah inoo fudaydiyo kuwa diinta u dadaala ee ku dhaqma ee ku amal falay diinta danaya Allah inaga yeelo amniga iimaankana Allah inoo ziyaadiyo maalmahana roob la'aan baa jirtay roobka Allah inoo furo ilaahu naxariistaada nagula tacaamule afcaasheeda ilaahu nagula tacaamulin sida annahay hadduu ilaahay nagula tacaamulayo adduunyada inaan joogno xaq uma yeelaneen laakiin ilaahay wuxuu nagula tacaamulaa sida isagu u yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roobkana ilaahay noo furo ورئيس سمادر روب خير بدن الله نجسيه دول كنا رئيس بركة الله نوجس وصاره أمني ما كان الله نوزيادي ودل كنا نبت قليدي سأل الله نوصيات كيو دتك مسلمين تم من دمده وده موافقة الله وزياديو مالك است مسلمين تجوعنا كربة صارنا الله كقاضي عريرك الله كفيدو بعد كربة هيستون الله كقاضي دين تطاعد الله إنه معناه سواء كنا مقبول الله كيالو خاتمة الله إنه وناجيو عذاب القبر إن الله إنه نبت قليو فردوس على الله إنه صلى الله على سيدنا محمد.